أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين. بسم الله الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسنا من الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صام صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات maalmo yar ka gadaal hadduu alla idmo waxaynu soo gali doonaa bil Allah ka doortay kana sharfay bilaha kale ee sanadka nabigiisana sallallahu alayhi wasallam uu waxyooday fadligeeda iyo makaanadeeda waa bisha Ramadaan oo Allah ku waajibiyay inay soomaan adoomadiisa soo galida bisha Ramadaan waxay naga mudan tahay inaan soo dhaweyn mid ugu dhameystirnaashaha badan ayna nooga duwanaato maalmaha kale iyo bilaha kale ee sanadka. Haddaba waxaan isweydiinaynaa waa sidee qaabka ugu wanaagsan ee aan ku qaabili karno soo galida bisha Ramadaan kuna soo dhaweyn karno. arinka koowaad aan ku qaabilayno bisha Ramadaan waa baryada adoonka rabbigiisa uu baryo intay soo galin Ramadaan. waxa uu rabbigiisa adoonka ku baryo Ramadaan intay soo galin ka hor waa 3 arin. midda koowaad inuu adoonka rabbigiisa weydiistaa inuu gaarsiiyo bisha Ramadaan. midda labaad inuu adoonka rabbigiisa weydiistaa inuu waafajiyo bisha Ramadaan dhexdeeda acmaasha wanaagsan sida soomka, salaada iyo dhammaan cibaadaadka fadliga badan. midda saddexaad inuu adoonka rabbigiisa ka baryaa inuu ku daro kuwa amalkooda la aqbalo naartana laga xureeyo. arinka labaad aan ku qaabilayno bisha Ramadaan waa in adoonka niyeysto niyo wanaagsan si uu ugu faa'iideysto bisha Ramadaan dhexdeeda acmaasha wanaagsan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay innamal a'maalu binniyat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay acmaasha waxay ku ansaxdaa niyada qof walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeystay. Imaam Ahmed Allah u naxariistay wuxuu ku dhahay wiilkiisa Cabdullaahi wiilkaygiiyo niyeyso khayrka waxaad niyeysataa aadan ku camal falin xataa niyada wanaagsan ay camalku ah. niyada wanaagsan ee aan ku qaabilayno bisha Ramadaan waa 2 qaybood. midda koowaad inuu si guud u niyeysto inuu badsan doono acmaasha wanaagsan. niyada labaad inuu si faahfaahsan u niyeysto adoonka noocyada kala duwan ee kamid ah cibaadooyinka uu sameyn doono sida soonka, salaada, akhrinta quraanka, sadaqada iyo ihsaanka. arinka saddexaad oo adoonka bisha Ramadaan ku qaabilayo waa inuu naftiisa u diyaariyaa una sheegaa hadduu camal wanaagsan sameeyo inay naftiisa anfici doonto halka hadduu camal xun sameeyo naftiisa ay dhibi doonto oo xasuusnaado asagoo qalbigiisa ku haya hadalka oo Alla dhahay man amila salihan falinafsihi ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله سريه wuxuu dhahay qofkii camal wanaagsan sameeya naftiisa ayuu anfacayaa qofkii camal xun sameeyana naftiisa ayuu dhibay. Allana ma ahaanin mid adoomadiisa dulmiya. sidoo kalena Allah wuxuu dhahay qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها. waxaa liibaanay qofkii nafsadiisa ku daahira daacada alle waxaase qasaaray qofkii nafsadiisa ku duuga macaasida alle. haddii uu adoonka niyadiisa ku gunto arinka nafsadiisana u sheego waxa ay sabab u noqonaysaa inuu la yimaado wixii rabbigiisa u dhaweynayo kana fogaado dambiyada iyo macaasida. arinka afraad aan ku qaabilayno bisha Ramadaan waa barashada ahkaamta Ramadaanka. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu waajibiyay inaan ku caabudno cilmi. sidaa daraadeed waxa looga baahan yahay qof kasta in uu sii barto soonka iyo ahkaamtiisa si uu isaga ilaaliyo inuu ku dhaco qalad. muslimka dhabta ah waa midka ku caabuda Alle cilmi iyo aqoon uu u leeyahay waxa uu ku waajibiyay. sidaa darteed qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay inuu sii barto soonka iyo masaa'isha la xiriirta si uu uga dhicin qalad qofka asagoon garanayn ama moogan. arinka shanaad ee aan ku qaabilayno bisha Ramadaan waa barashada fadliga ee leedahay bisha Ramadaan iyo inay tahay bishii dambi dhaafka iyo naxariista. barashadaasi waxay kugu kaalmeynaysaa inaad sida ugu wanaagsan uga faa'iideysato bisha Ramadaan. arinka lixaad ee aan ku qaabilayno soo galitaanka bisha Ramadaan waa toobadkeenka. waxa ugu weyn ee qofka muslimka ka hor istaaga inuu ka faa'iideysto waqtiyada khayrka waa dembiga. qofka dembiga badan waxaad arkaysaa inuu soo gaarayo waqtiyada khayrka una dhaafayo asagoo aanan ka faa'iideysan.
dhici kartana inuusan garanaynin fadligeeda iyo xurmeynteeda. Alla sareeye wuxuu leeyahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. allah sareeye wuxuu dhahay u toobadkeena alla dhammaantiin waxaad mudantihiin haddaad toobad keentaan inaad liibantaan adduun iyo aakhiro. aan cusboonaysiino toobadeena inta aysan inoo soo gelin bisha ramadaan iyo markay inoo soo gasho labadaba. allah naxariistiisu waxay u dhowdahay kuwa xaggiisa qaabila una toobad keeno. arrinka toddobaad ee aan ku qaabilayno bisha ramadaan waa in waqti hore loo sii qorsheeyaa sidii looga faa'iideysan lahaa. in badan oo inaga mid ah waa kuwa u qorsheeya arrimahooda adduunyo si ka fiirsasho leh, laakiin way nagu yar yihiin qof sidaa u qorsheynayo arrimihiisa aakhiro. qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu dejiyo barnaamij oo uga faa'iideysanayo habeenada iyo maalmaha bisha ramadaan. arrinka sideedaad ee lagu qaabilayo bisha ramadaan waa inaad alle ku mahadisaa hadduu ku soo gaarsiiyo bisha ramadaan. nimcooyinka ugu waaweyn oo alle addoominkiisa siiyey waxaa ka mid ah inuu waafajiyo cibaadadiisa iyo daacadiisa. waxay ka dhigan tahay bisha ramadaan inay soo gasho adigoo caafimaad qaba. nimco weyn oo alle ku siiyey ay mudan tahay inaad alle ooga shukriso. arrinka sagaalaad ee lagu qaabilayo bisha ramadaan waa in lagu farxaa soo gelidda bisha ramadaan. waxaa ka sugnaatay rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu saxaabadiisa ugu bishaareyn jiray soo gelidda bisha ramadaan. miyay jirtaa farxad ka weyn inuu alla kuu doortay inaad soo gaartid xilliga khayrka iyo raxmadiisu ay soo degayso. arrinka tobanaad aan ku qaabilayno bisha ramadaan waa furashada bog cusub oo nolosha ah. intay nafsada jirka ku jirto wadnahana uu gargaraacmayo weli waxaa haysataa fursad aad isku bedasho. sidaa darteeda qofka muslimka waxaa laga rabaa khayrka inuusan ka dibdhigin qaladaad waqti hore ka dhacay iyo dembiyo ka hormaray ka hor bisha ramadaan. furtana safxooyin cusub oo nadiif ah kana faa'iidaystaa bisha dembi dhaafka ah. xiriir fiicanna uu la yeeshtay rabbigiisa, nafsadiisa, ehelkiisa iyo dadka dhammaantooda. soo gaaridda aad soo gaartay bisha ramadaan wuxuu allah kuu furay dhammaan albaabada jannada ee u degdeg gelitaankooda. yaa rabbi balliqnaa ramadaan wanaxnu fii sixatin wacaafiya. yaa rabbi wafiqnaa fiihi lidaacatika walimaa tuxibuhu watardaahu. allahuma ajcalhu lana shahra khayrin waraxmatin wacizin wakaraamatin watawfiiqin warashaad. wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamed. الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. رباه بلغ قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا. هل نكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت سوف يفنينا.